muuqaalkeennii hore waxaynu kaga soo hadalnay saddex qoys oo hodan ahaa oo dalalkooda madax ka noqday markii dambe dabar go'ay. waxaynu ku saabsanaa muuqaalkeennii hore qoyskii reer Kennedy. waxaynu sheegnay Joseph Kennedy inuu dhalay 4 wiil oo mid ka mid ah uu ku dhintay dagaalkii labaad ee adduunka. kii labaad waxa waa John Kennedy oo Mareykanka madaxweyne ka noqday isagana la dilay. labadii dambe ayaynu isla eegi doonaa meeshii ay ku dambeeyeen. wiilka saddexaad waxa uu ahaa Robert Kennedy. Robert Kennedy oo ka yaraa walaalkii John Kennedy isna waxaa toogasho ku dilay Sirsaan oo Falastiini ahaa. Robert Kennedy waxa xilligaas u tartamayay madaxweynaha dalka Mareykanka. maalintii Sirsaan dilay taageerayaashiisa ayuu khudbad uga jeedinayay Hotel Ambassador Los Angeles, California. markii uu khudbadii dhameeyay ayuu dadkii dhageysanayay oo Sirsaan ka mid ahaa dhex galay si uu salaamo. markaas ayuu Sirsaan baastoolad ku toogtay. Robert Kennedy waxa xukuumadii walaalkii John Kennedy ka ahaa xiriir ilaaliye guud. waxay si baan isaga hor yimaadeen nin la oran jiray Jimmy Hoover oo madax u ahaa mid ka mid ah ururada shaqaalaha ee Mareykanka. Jimmy Hoover waxa lagu eedeeyay musuqmaasuq xad dhaaf ah waxaana loo xil saaray oo loo diray guddi baadha oo Robert Kennedy uu ahaa la taliye sharci. waxaana jiray tuhun ah in Jimmy Hoover ka dambeeyay dilkii Robert Kennedy laakiin arrinka lama xaqiijin. Robert Kennedy isagoo wax ka bartay jaamacadda Harvard ayuu isaga baxay si uu dagaalkii labaad ee dunida uga qayb qaato waxaana uu ku biiray ciidamadii badda ee Mareykanka. markii dagaalkii dhamaaday ayuu ku soo noqday jaamacaddii Harvard si uu waxbarashadiisa u dhameysto. kadibna waxa uu cilmiga qareennimada ka qalin jabiyay jaamacadda Virginia. sanadkii 1968 ayuu u tartamay kursi aqalka sanadka ee Mareykanka wuuna ku guuleystay. Robert Kennedy iyo marwadiisii Ethel Kennedy waxa ay ifka kaga tageen 12 carruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdhaha. wiilka afraad ee Kennedy u dhalay waxa uu la oran jiray Edward Kennedy. Edward Kennedy oo ahaa wiilkii ugu yaraa inamadii Joseph Kennedy waxa uu dhashay sanadkii 1932 wuxuuna dhintay sanadkii 2009 isagoo buro kansar ah ay maskaxda ka soo baxday. tacliinta kuma uusan fiicnayn oo waxa laga ceyriyay jaamacadda Harvard kadib markii lagu eedeeyay inuu wiil lacag siiyay si uu imtixaan ugu galo. inkastoo oo uu guursaday haddana wuxuu aad ugu hoolanaa dumarka. waxaa la sheegaa in isaga iyo kuwa saaxiibadiisa ay habeen kula caawiyeen gabdho shana guri. markii dambe ayuu ka haystay mid ka mid ah gabdhihii oo magaceeda la oran jiray Mary. intay jidka sii socdeen ayaa gaarigii meel kula dhacay waxa uuna isaga iskaga baxay gabadhii oo gaariga ku jirta. kadibna waxa uu aaday saaxiibadii si uu soo kaxaystay gabadhii la badbaadiyeen. markii ay u yimaadeen iyadoo nool hase ahaatee way badbaadin kari waayeen. markii dambena booliska ayay u sheegeen. booliskii ayaa u yimid gabadhii oo markaa miir la ayay ka soo saareen gaarigii. kadibna markii gaarigii lagu qaaday ayay dhimatay. boolisku maxkamad ayaa loo gudbiyay. maxkamaddii waxayna ku eedeysay in hawshan ay keentay dayacaad waxaana lagu xukumay 2 bilood oo uu si volunteer ah ku shaqeeyo. arrintan oo ah hawshaasi ama fadeexadaasi waxay Edward Kennedy ka xarintay inuu u tartamo xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka taas oo loo diiday inuu noqdo ama isu soo taagaba madaxweynaha Mareykanka maadaama uu sameeyay dayacaad qof bini aadan ah. muuqaalkeena intaas ku qabanaynaa. haddii taad markii ugu horreysay ugu soo biirto kanaalka subscribe like share intaas isku dar. aad mahadsantihiin.